Soomaalidu xukuma ma hada baadin doonay oo soo way muusan raadin macnaha markaan ka hadlo dawladeenu waxa soo maray COVID madaxweyne ilaa Xasan Saadi ilaa Cabdi Maxamed Cumar intaana magaalada Jigjiga waan joogay because waxa macnaha wax horumarkan oo kala soo gaaray ma inaan lahayn waxa jirtay bariga hore telefoonada iyo dadka qurbaha jooga dir dhawaayeen moolka u dirsan jirnay qof baa loo soo diray 200 dir dhabu ka iman macnaha nabadgelyo darrada dhibaatada dalkeena haysa ka sheekeynaya iyo horumarkan hadda haysano 200 qabri bay Jigjiga dhexdooda hooyadii cuni ilmaheena uma geeynin umanayna waxna kuma qabsanin baahida faramadana bari ubadkeedii u tagaysay waayo kolanya lagu bixi jiray wadanka oo lagu mari jiray ma inaan haysanin macna qof baabuur intuu kaligii baxo soo laba noqdo sida hadda oo kale ma inaan lahayn bisha kolonyaduna soo mari kolonyadaas aan isku beeri jirnay kolonyadaas ama dhagax ama qabr dahar ama maxay ahaydey in qaraj qodob ka maysan qaadi jirin kuma inaan haysan biyo ma inaan haysan horumar ma inaan haysan caafimaad ma inaan haysanin waxbarasho ma inaan haysanin madax macnaha nin fadhiyo ma inaan haysanin maantana macnaha waxa nabadgelyada waxa ina tusay waxyaabaha dawan nabadgelyada horumarka aan gaarnay aan macnaha ka sii badanay aan ka sii isleenahay maantana meel kasta ma naga haysana marka waxaan leeyahay in xukuumadda DDS iyo shicibkeedaba sida aynu heshalay bay isugu dubnaan isugu dubnaan aan u wada tiriyay sidii la isugu keentumayeen waxa la labada la isku xaaranay sidii la isugu keentumayeen aan u wada noolayn ee shicib iyo dawlad wada ahayd aan u wada ahaano ayaan leeyahay marka maxay ahayday madaxweynuhu noolaado hajiro ha joogo hana si hayo hawaaro saddex dawladood baan intaan aqlistay soo maray Itoobiya saddex dawladood mid waan ka maqnaa tiiminkista Xayla Maryan wadanka waan ka maqnaa laakiin Xayla Silaasi iyo tanba jooga Xayla Silaasi dhibaatadii uu ina soo mariyay iyo wadankeenu dawlad la'aanta dhibaatadii aynu soo marnay kullay leedin ka sheekayn maayo laakiin dhalinyarta yaryar ee hadda la khaldayo ee wax loogu sheegaya waxba ma oga laakiin ragga waaweyn ee dhibaatadii ina soo martay aad u sheegtaan baa fiican anigu meeshaan ka hadlaba waan ka sheegaa kabacasa la igu dilay hadda ka hor kabacasa oo tawba jaalada iga keenay baa la igu dhirbaaxo maanta madaxweyne Soomaaliyeed baa fadhiya xafiiska tagtana Soomaali baad ugu tagaysaa maamulkaada aragtana Soomaali baad ugu tagaysaa ilaahay bay nagu simay waxbarasho laynama siin jirin maalgelin wadankeena laguma samayn jirin wada laynooma dhisi jirin oo ceel laynooma qod jirin oo xagga caafimaadka dumarkeena miyigu waxay ku umul raaci jireen dhiig baxbay umul raaci jireen maantana tuulo walba ambalaas baa taagan iyo rag caadad caafimaadka ah waxaynu ku helay waa dawladda sharafta leh aynu haysano inaan kaalmayno oo garab joogsanana waajib bay nagu tahayba waaba shukri ala waajib oo wadankeena ayaa ka soo baxa jaamacadaha ma inaan haysanin laba wiil buu walba ka qabiilku ardayska loo geyn jiray kaasnaba muuqanin marka waxaan idin leeyahay dawladdiina waa inaad garab gashaan dawladdiina ruuxii wax ka sheegay waa inaad dhag u dhigin waa inaad wadankiina wax u qabataan waa inaad yacna ma aragtay barwaaqada ilaahay ina siiyay aynu ilaahay ku shukrino hadda odayada jid waqtihiin oo gabdhaha jid waqtihiin oo dhalinyarta jid waqtihiin dawladdaas sharafta leh waxba inoo tartay waaqaynu ka aragnay jid wakaas rag iyo dumarba jid wakaas